السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa waxa inaan idin la wadaago wadada hadda halka aan taaganahay waxaan ku sameeynaa wax loo yaqaan pension waxa weeye wadadii wirtigeeda ama balaceeda inay qaybna adag tahay qaybna ay jilicsan tahay markii qaybta jilicsanayd ayaa la soo dhisay la kabyo ilaa la simo qaybta adkayd yani waa hal section oo wadadii kamid ah yaa qaybna ay jilicsan tahay qaybna ay adag tahay marka qaybta jilicsanayd ayaa la kabyo ama leeyro la soo dhisayaa si loola soo simo qaybta kale haddaad inta aan gadaal u yara dago 100 mitir kadib waxa ku sameeynay waxay hard rock material yani dhagax adag yuu ahaa oo waxa weeye in la jibiyay ay dhib badnayd waxa sababtay marka la kabyada qaar kamid ah in laga tago sida la kabti waxa loo yaqaan subgrade oo ah foundation ama asaaska wadada inaan isaga tagnay maadaama meeshii dhagax adag ay tahay haddaan gadaal u sii dago 300 mitir kadibna waxaan soo dhignay rockfill annaga waxaan keenay dhagax oo waxaan soo buuxinay 50 cm oo dhagax ah yani meesha waxay ahayd meel jilicsan biyo fadhiisi ah caradeeda ay weak tahay dan waxaan ku khasbanaanay inaan sameeyno rockfill aan ku sameeyno haddii dhagan kale aan aado isla section-ka hadda pension aan ku sameeyay 200 mitir ka hor asagana wuxuu ahaa section hard material oo waxa weeye subgrade-ka aan la dhigin haddii meeshaan hore uga sii kaco 400 mitir kadibna wuxuu ahaa section ciidiisa ay jilicsan tahay laakiin zaid aysan ahayn yani jilicsanaanta ayada waxaan ka wadaa ma xajin karto subgrade-ki oo waxaan soo dhisnay section kale oo loo yaqaano roadbed ayaa la soo dhisay haddii dhakan kale midigaan daraan aado section-ka ay idin sheegay rockfill baa sameynay section ka dambeeya waxaa jira asagana soo sameynay first fill iyo second fill labadaas fill ba waxay ka hooseeyaan roadbed-ka kadib baa subgrade sameynayna yani intaan oo macluumaad kala duwanna waxay imaanaysaa intaan oo macluumaad kala duwan waxay imaanaysaa wax 2 kilomitir ka yar yani hadalkiiyo duruucdiisa marka wuxuu yahay isma wado way ka weyn tahay in mashiino la keeno carakaabo meel la saaro la garaaco kadib laami la saaro way ka weyn tahay markii la joogo feasibility study phase waa in si saxan loo ogaadaa existing terrain the condition of existing terrain meesha la rabo wadada in laga dhiso waa in la ogaadaa xaaladda ku sugan tahay kadibna design-ka ninka sameeynaya engineer design-ka waa inuu go'aan saxan ka qaataa leeyarada meesha imaanayo yani pavement layer design marka la sameynayo ayaa waxaa lagu dhisayaa xogta laga helay feasibility study oo ah existing terrain yani condition-ka ay ku sugan tahay dabeecadda ilaahay dhulka ku abuuray bal hadda fiiri meeshaan inta aan taaganahay waa qayb jilicsan iyo qayb adag 100 mitir kadib waa dhul adag meel ka sii dambayso waa dhul jilicsan meesha ka sii dambayso waa meel aad u hooseyso oo u baahan in la soo sameeyo feelings intaas oo feel haddii hore si aadana soo horeyn kugu sheegayba 300 mitir ka horna waa dhul jilicsan laakiin jilicsanaantiisa aan gaarsiisnayn midkii aan dhagax soo gelinay